بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ وضيال كسر وضع 10 سبن قاعدين إنه كلام برنامج كأني كبركم يتركب صومالي 10 كلمات قاعدين إنه وكورس صوب كورس كاسو حوي هاي فيديو إديتين صار مقالك حقي صار وكسر أركتين مقالك وحين كوفة فهين دونا قيبها وهرية مقالك سينو لسه تجينو برنامج كأنه استعمال دونا هدي على راحدو sidoo kale waxaan baran doonaa qaabka maxaan ku raahday loogu shubo computerka ugu dambeyntiina waan tijaabsan doonaa hadii la yiraahdo halkaas oo casharkeenu inoo sii socon doono xalqadba barnaamijka maanta rabnaa inaan barano ama course-keena aynu saldhig ugu dhigayna waxa noqonayaa Filmora. maxay tahay markaas sababtaan ku dooranayno Filmora video editing ayaan ku barano. marka video editing sababtaan ugu barano wax kala ma aha, waxa weeye barnaamij aad iyo aad u fudud kaasoo inaga caawinaya in maxaan ku raahday si yar oo fudud qofkan weligii xataa hore u soo arag inuu fahmo video editing. barnaamijkan waa simple aad iyo aad u fudud yahay. waxaad ka isticmaali kartaa keyboardka computerkaaga, sidoo kalena caadiyan baad isticmaali kartaa. maaha barnaamij wax waaweyn iyo howlaha kaaga baahan, waa barnaamij aad iyo aad u fudud. haddaynu rabno inaan la soo degno barnaamijkan waxaan ku furan doonaa hadii la yiraahdo browserkeena inuu jiro computerkeena. marka browseryadu kala duwan yihiin Edge, Chrome iyo Firefox oo kala isticmaalaysid habba kii kugu jiro computerkaaga ama halka internetka ka geli macluhu soo keenana halkan mana soo furi doonaa hadii la yiraahdo. waxaan halkan ku qori doonaa website-kii caanka ah ee kala soo degnay Mafiska markaan qaadanaynay get into PC markaan qorno into pc.com baan leenahay. inta markaad qortid interbad oranaysa soo dhaxgelisaa website-ka caanka waa ka warka kambuha loogadiisa caankan ahayd laga yaabo website-yada kale oo ay inaad heshid. marka adigu muhiimadu waxa weeye step-skan maraya inaad martid hadii la yiraahdo. barnaamijka waxa uu maxaan ku website-kan ku fiican yahay, aad baa maxaan ku raahday u qaabisan yahay oo design gareysan yahay. marka qofku meel ala meeshu doonayo oo dhan buu maxaan ku raahday menu-yadan uu ka heli doono hadii la yiraahdo. imika waxaan ku soo dhufanayo qaybta multimedia oo course-kan baranayna ah, gaar ahaan video editing-kan baranayno. marka wixii la isticmaalayo oo dhan bay noo soo dhigayaan oo loo isticmaalo video editing-ka. hadday tahay maxaan ku raahday graphic design-kii oo qaar kamid ah ku jira, haddii ay tahay maxaan ku raahday sidoo kale bahalkii audio editing-kii waxaba ka baahan tahay kan oo kale waa audio. marka wixii aad u baahan tahay ka digaysa halka hadii la yiraahdo antivirus-yadan iyaga la digi kartaa. waxyaabo ku yar fiican yahay maxaan ku raahday website-kan aad ugu fiican yahay. sidoo kale barnaamijyo waxbarasho uu ku siin karayo iska free. marka xataa jadwalkaaga aad ku maxaan ku raahday habaysan kartid oo aad u isticmaali kartid. halkan tababarayo tutorial casharo noocaas ku siinaya oo waxyaabo tutorial ah ayaad ka helaysaa. xagga software-da gibigood kooda helaysaa. imika anti-radio analysis-ka wuxuu ka hayaa 16 maxaan ku raahday barnaamij animation-ka state bottom uu ka hayaa. saasoo mood soo soconaysa hadii la yiraahdo waa ilaa PC ilaa ilaa gaaraysa browserada tusaale wuxuu ka hayaa 24 browser buu ku hayaa. maxay kala tusaale dareefrada 40 nooc. marka qaar baa laga yaabaa inay soo noqdaan oo laga yaabaa in update-kii waxaana ay soo noqdaan. electrical engineering-ka tusaale ardayda barata oo kale u caawinaya halkaasi. waxaan gibigu aad ku wada caawinayaan. marka waad iska isticmaali kartaa xataa fiilkaas aad buu anfacaya ardayda engineering waxaa barata. gimamkaas adigu wixii aad u baahan tahay hadii la yiraahdo waxaad helaysaa maxaan ku raahday Java oo application caadi ah, HTML5 oo mid caadi ah, waxaad helaysaa hadii la yiraahdo. marka waad u baahan doontaa hadii la yiraahdo wixii aad u baahan tahay. waxaan u baahanahay multimedia ama siyaasadiintan aynu ku qori doonaa Filmora. marka horaan baaray Filmora markaad qortid waxaa dambe ku soo baxaysaa Wondershare Filmora la yiraahdaa 2020 kuwaasina degan hadii la yiraahdo. setup-kan markaan horta waxaan oran hadii aan yar sharxo
intaan oo dhan wada Filmora kan waa la isticmaali karaa computer iyo maxaan ku raahdaa waxaan jeedaa Windows iyo Mac labadaba lagu isticmaali karaa intaan oo dhanba kan baa ka yar duwan oo waxa lagu talagalay kombiyuutarada marka Windows ka qaata in bay inta kale ku shaqeynayaan laakiin kan wuxuu ku gaar yahay kombiyuutarada Apple maxaan ku raahdaa ku shaqeeya marka hadda haysid kombiyuutar Apple iyo wax noocaas ku shaqeynaya kan baa iska isticmaali doontaa daleera halkan anagu kala degayno Allah musta'an kan baan la degayno anagu adigu kan baa hadda kombiyuutarka ku Apple yahay la degayno taas sababtoo ah dadkan la degtid ama kan ila maaka ku shaqeynayo marka ka soo degaysa hadii la yiraahdo okay imika waxaan la degaynaa hadda maxaan ku raahdaa barnaamijka kan maan dhow bisoo upgrade gareeyaan oo waqtigii la soo geliyay baa ku qoran marka kaas ma isticmaalino sababtoo ah laga yaabaa adigu maadaama kan waxa ugu dambeeyay inaan xogaa yar dhameystirin baa laga yaabaa marka adigu ka ugu dambeeyay mar walba usbuuci waxa salaamay qaato laga fiican yahay ka xogaa yar yaalay dadku yar isticmaalay baa la qaataa ma sababtoo ah kan ku dooranna waxaan u leenahay marka waxaan nimaadno noo soo fur kabacdi waxaan soo dejinaynaa kombiyuutarkii la jira laba xabba kala jira mid waxa weeye Allah musta'an 64 bit iyo 32 bit way kala duwan yihiin marka hadii 32 taayna 32 ku dhufan doontaa hadii 64 taayna 64 ku dhufanaysaa marka sidoo kale website-kiina waad kala soo degi doontaa linkiga waxaan idin soo dhigi doonaa hadii la yiraahdo waxaan idin soo dhigayaa description-ka hoose marka insha Allah dila kareem saas oo soconina installation-ka bilaabina waxaad la soo degtid labada website ba ka isticmaashid halkan ku dhufo kadib waxaad raaddaa show in folder halkan baa ku soo bixi doonta marka position-kan ka yar bedelaya anigu waxaan dhiganayaa halkii sidii ka bedelayaa meel kale oo raacaya marka ila socdo okay waxaan soo dhigayaa bahalkii yani local ma soo dhigay icon saas u yahay icon kodan soo weyneeyo waa setup sida marka double click ma siinaya laba jeer baan yani ku dhufanaya ma soo furaya maxay okay installation ku bilaabaya laakiin hal wax way xasuusinaya internetka waad iska xiriirsaday kala crack iyo waxa ku qabsanaya kombiyuutarkaaga waa laga xiriyaa dhowr hadii la raahdo okay install baan leeyahay maski sugiya la intuu maxaan ku raadayay installation ku dhamaanayo okay after installation waxa halkan ku soo istaagi doonaa waxa loo yaqaano icon-kii uu lahaa bahalkaagu ma application-kana soo dejisay oo ka bartaas inuu yaala waxaan soo furayaa sida caadiga ahayd kadibna waxaan bilaabi doonaa tijaabada koowaad inoo sharxi doonaa qaybaha ugu horeeya